أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عشر كان عاو وحن كبرنا ناسنا إن GRE tunnel GRE tunnel أوكي أنت عن بلعبين سيدا نورمال كأهد فيديو كاستو أنصور لبنو يوتيوب channel كينا قيبته خوصة مش شو مورك وقرطة مركة تابتت وحاكو جرى سوفتوير كاستعمالنا سيلا سودا يسنايو إن سوفتوير كأي روتر هذا إيو فيديو شرحايو خوصة يالا كل ليلة بقربابا ميشا كراعي كرتا أوكي فيديو كان إن جاري تونت هذا waxaan isticmaalana OSPF oo casharkan ku horeeyay OSPF waa taqaan kulli hore uu soo sameeyay qofka aan soo sameeyay video ko soo raaco kaas soo sameeyo kadib halkan ay maad jari tunnel sameeyna jari tunnel okay meeshan OSPF ku qanta waxaan ku bedeli doonaa jari tunnel bedeli doonaa space متاعي صار generate routine encapsulation apply okay laakiin meeshan uu yaala ma rabo halkaan keen okay waxaan kaloo kusoo dareynaa switch iyo computer switch computer soo hore u sheegay routerdan qaybta kore horan soo sameeyo USB fan soo sameeyo ina wax kala taabto marabo video kala hoos yara raac hadda u baahan tahay OSPF laakiin hadda ujeedkaygu wuxuu yahay inaan sameeyo kaliya maxaa la dhahay ki jari tunnel /1 1/2 0/0 BC1 kan waxaan asna GB1 1/1 1/2 0/0 okay started kulli waan soo wada shino waxaan naga determine waa inaan fiirinaa horta group console now okay show ID interface for ku jira halkan qaybtan ku jira for kana ABTS kaas for naxo diray kaas kana show ID interface brief asna waxaa ku jira percentage 0.2.3 ah waa kanasna .2.3 ku jira okay kuwa kalena ay shaqeynayaan inaan sii galgalan marabo waxaan show ID route intaan dhin group kan now show ID interface brief .4.4 ku jira okay kaas ben garay un pin 192.168.4.4 oo shaqeynaya trace route 192.168.4.4
OSPF normal waa shaqeynaya videoga hore ku soo aragteen intaan intiisaan u maleynayo. Okay, waxaan rabnaa marka inaan sameyno gigabyte 1 kan inaan IP address geliyo OSPF inaan isticmaalno ma rabo. Tunnel aan isticmaalno maanta. Interface gigabyte 1/0 IP address 192.168.10.1 255.255.255.128. Okay, no shut. Text C 192.168.10.0/25. halkaan. Okay, PC kan imaa console IP 192.168.10.2/25 192.168.10.1 default gatewaygiisa waa kaas. intaan dhan horaan soo aragteen waa taqaanin soo marinayo pin 192.168.10.1 haddaan dhaho aad u bangareynayaa, laakiin ma bangareyn doono kan ku xigo .4 waa bangareynaya. hataa albaabkan waa arkaa wax loogu talagalay GRE tunnelka routerkan gurigaaga marka aad joogtid inta albaab ku taal waa arkay. haddaa furihiisa haysan laakiin ma mari kartid albaabkaas ma iska furi kartid. albaabkan furaha uu leeyahay IP address uu leeyahay kan waa .4.4 hore u soo aragnay halkan uu yaalaa .4.4. okay, tii aan gelinay show IP interface brief. hadda kanaan sameynay kan uu lahaa kaas albaabkaas haytay caadi u bangareyn. hadda PC-gan saan rajeynayo caadi u bangareynaa, laakiin router 3 ma bangareyn doono. albaabkan ma arkay. albaabka markaad ka baxdid yani routerkan marka ka baxo oo dhinacaas uu aado loo ogolaado loo aadi karaa. IP brief 4.3 waa kaas 4.4 waa bangarey 4.3 fiiriya ma bangareynayo. okay, ujeedka laga leeyahay marka waxay tahay okay, kan kalena aan sameyno router 5 waa kan gigabyte 1 conflict interface gigabyte 1/0 IP address 192.168. halkan soo siinay waxaan sii ka duwan waa inaan siiyaa 11.1.25.255.192/26 aan siiyay kana no shut. okay, and 11/26 kan console 192.168.11.0/26. PC-gaas ay tagaan markaan PC kan see 192.168.11.2/26 space 192.168.11.1 pin 192.168.11.1 caadi u shaqeynaa kaas. okay, haddaa xasuusataan halkan waxaan dhahnay brief
wuxuu bingariyay 44 kan 88 saan maleynayo trace root ka way waa kan 44 waxaas kale router 4 ka aad u bingariyay waxa ku dhagan 10.1 dhinacanka ma bingarayna fiiriye marka taas .1 ma bingaraynayo trace root warkiisa daa horta trace root daya ma gudbayo PC gan ku fiiri kartaa PC2 ga PC2 kan wuxuu bingareynaa kan ma bingarayn karo awoodaas ay timale marka ilaan kuwani waxaa la isugu xiray router 5 ka 5.0 ilaa router 4 5.0 OSPF ee wada shaqeynayaan videoga kan ku reeda ogsoontiin marka waxaa la rabaa kan waxaas kale security ama waxaas kale bangi ama waxaas kale engineerka inuu isticmaalo wuxuu isticmaalayaa marka tunnel wax la dhaho GRE tunnel isticmaali karaa wuxuu isticmaali karaa IPsec يعني asoo crypto la sii geliyo la isticmaali karaa asoo kala gedisnaa jiro haddaba waxaa la rabaa computerkaaniti ama routerkan qaybtaaniti inay halkaan marto tunnel laga dhex sameeyo tunnelkaas waxaa loogu talagalay qaybtaan inuu dhexdaan maro dhexdaas maro intan saas u bingareeyo halkaan saas u bingareeyo dhinacaniti waxaan hadda highlight gareynayo dhexdaas ay loogu talagalay dhexdaan ay loogu talagalay inuu isticmaali karo tunnelka laakiin intuu maraa waajib ahaan xaqiiqiyan intuu maraa kuwaana waa arkayaan OSPF ma isticmaalayo inay kuwaan oo ku dhunto ala rabaa normal baniyaadmi ahaan marka magaalada fiirino waxay leedahay buundooda hoosteeda marka amaraysa buundada korkeeda qofkii maraya ma arkaysid sababtoo derbiga ku dhex jirta ama bareejada tunnelkaas oo kale waa kan wax la isticmaalayo waxaa loogu talagalay sukuur ahaan marka kaasaan sameynayna hadeer router 4 ka imaana router 5 wili trace root ka wada waxaan hayo waa warwareegaya marka waxaan hayo aad warwareegaas kan intimaa waxaan sameynayna marka tunnel config interface tunnel 0 IP address 192.168. leenahay kan intaan 15 noo haysano 15.1.255.255.255. normalka shirkadaha markii tunnelka la isticmaalayo waxay isticmaalaan 252 si aan loo dhexgelin hackerka haddii uu isku dayo inuu dhexgalo soo ku dhexgalo ama abeejris kale ugu darsado way adag tahay ma ku darsan karo marka waxay ku dadaalaan karaago dhan in la iska ilaaliyo marka hadda waxaan isticmaalaynaa 252/30. okay waxaan leeyahay tunnel source intuu maraa tunnelkan waay dadkaaniti intuu maraa halkan jid ma lahan routerkan wuxuu leeyahay hadda laba albaab dhowr albaab baa loo yeeri karaa laakiin laba albaab uu leeyahay albaabkuu maraa waay halkan oo maraa marka fast internet 0/0 source u ah waxaan leeyahay hadana tunnel destination intuu aadaa waay ilaan hal ilaa uu leeyahay geedkan waa 1-to-1 tunnel destination waxaan siinay 15.1 ma rabno waxaan siinaynaa markaaniti destination come on man okay waxaa la siinaa .2.3 oo fast internet 0/0 ah halkan waay fast internet ilaa halkan source siisay kan waa inaan siisaa destination kan hadda source siinay fast internet 0/0 kan destination waay destinationka marka fast internet 0/0 ma naga yeelayo waa inaan siinaa IP address kan IP address kan wuxuu ahay .2 I think .3 waa kan .2.3 waay okay destination 192.168.2.3 that's it intaas ugu dhamaanay kan show IP interface brief haddaan dhaho waa kan tunnelkan waa samaysan yahay laakiin weli ma shaqeynayo ilaa iyo kan laga soo programmeeyo kanna shaqada u dirnay trace root key oo ku jira oo raadinaya IP address kana oo u dirnay hadda xasuustaan trace root u dirnay 10.1 oo dhinacaniti ah oo sun gurigiisa gaarina u dirnay hal xabibta kama keenin okay marka config t
interface tunnel 0 IP address 192.168 dot maxaan siinay kan 15.1 15.2 255.255.255.252 no tunnel source asli sidoo kale in la siiyo waaye waxaa la siinayaa fast internet 0/0 waxa ku dhigan fast internet 0/0 tunnel destination waxaa la siinayaa IP address oo halkaan ah muxuu ahaay fast internet 0/4.4 la siinayaa 192.168.4.4 okay and WR show IP interface brief show IP interface brief okay waa app marka labada tunnel bin gareynayaan waa soo xirtaalo pin 192.168.15.1 waa isbin gareynayaan haddana kuwan waa indhooliyaal wax ma arkayaan USB laan ay sameynayaan okay waa shaygan ka fiirino waa shaygan ka energanity tunnelka IP address waa 15 192.168.30/30 marka waa GRE tunnel oo 15 kaas uu leeyahay IP addresskiisa waa shaygan sugeynaa markaan video wareegana waa shaygan soo dahay okay intuu soo dahayo aan fiirino kan PC-giisa ma bangareynaya PC2-ga PC2 waxaa ku jiray 11 okay millimeter always update video badankan okay halkan imaw waxaa bangareynaynaa in tunnelka kan kale 15.1 oo kan iska leh ala bangareynaa waa kan 15.1 uu leeyahay meesha oo maraysi tuuga meesha oo ka fiirsanay aragnaasna binaan sameynay ICMP waa kan 15.2 iyo 15.1 is bangareynaa wadahay marka muxuu isticmaalaa waaye stop kan sababta 15.2 as muxuu isticmaalay halkan haddaa fiirisiin internet protocol version 4 source allahay waxaa la soo isticmaalay 444 destination 2.3 ah waa router 4ka kuwani maaragtay halkan USB F ku yahay waaye kaasi oo isticmaalayo away 4.2 tunnelka maan tunnelkin waa 15 wuxuu ku tusinayaa 2 waa kaas jidka la soo maray waa kan uu dhahay haddaa fiiriso source halkan ku qoran iyo waxaa ku qoran destination okay laakiin khiyaano kale marka meeshaan ku jirta yar trigger kale ku jira halkan waxaa ku qoran GRE generate routing encapsulation IP ku qoran waa tunnelki oo kala GRE tunnel hada isticmaalo ku leeyahay meeshaan ku jira markii oo kaas ku siinayo protocolkiisa toos kuma siinayo halkaan laakiin hadda si fiirisid internet protocol version 4ka oo ku siinaya GRE tunnel process oo ka siinaya oo ku leeyahay waxaa la isticmaalay GRE tunnel askale IP address kaniti that means kuwan routerdaniti waa laga qariyay USB afana la soo isticmaalay tuugo ogana waa shaaga laakiin kan kuwan wixii ka ogi male doolayaal waay taas waxaan ku dhameynay GRE tunnel marka waxaan rabnaa IP addresska kan PC-gan inay isbin gareeyaan ayagoo haddana halkaan marin ee tunnelka dhex maraan shirkadahaas sameyn karaan okay PC-gan PC2-ga halkan okay PC2-ga aan rabnaa inuu bin gareeyo mar kale ku fiiri 11 waa bin gareyn kariya 10 marka 10.1
destination host unreachable allah ma gaarayno dhahay waa jiraa laakiin okay waxaan rabnaa usbf in la isticmaalo lama rabo iyo jarbi xitaa hadda ku horan soo sameynay haddana halkan ka fiirsada soo tunnel loo dhex maraasinayo config t okay router iyo jarbi 5 network 192.168 tunnel maxaa 15.0 haddaan qaldaneen meelahan ku yaalay 15 waakan 15.0 waa kanal horteeda yaala arag okay kan kalena waxaa dhada 10.0 show nano kan kale waxaan siinaa markaan waana siinaa asna tunnelkii kan kale 11ka waxaan siinaa show no config t router GRE 5 network 192.168.15.0 okay 11.0 and WR kada halkan imaado hadda PC-gii haddaad wuxuu bingareegaysana wuxuu ahay unreachable oo dhahay 10.1 inta keenaad still unreachable weli waa unreachable okay halkan imaado kusoo laabo maxaan gelinay show IP interface brief waxaan haysanaa 15 iyo 11 show run transaction EIGRP USBF waxaa ugu jira 22 waa aragnay EIGRP-gana waa kan oo leeyahay 11.55 oo leeyahay iyo 15ka ku jiro waa sax 15 iyo 11 sax okay portaashiisana macdansan waxdan ma dhahay kama fiiri show IP interface brief waxdan ma jira horta maya show run transaction EIGRP kaliya tusaan dhalay waa uu leeyahay isna 15 toos uma soo helin marka la probay marka okay dib ma jiro waxaan PC1 waxaa dhahdaa pin 192.168.15.1 wuxuu bingareynaya kaas waa tunnelka asigu ku dhegan way PC1 kan tunnelka halkan ku yaal waay waxaan bingareynayno dadtoona time wada hadlahay that means dhinaca tunnelka ma soo gaarin dadkaan okay tunnelka ma seelaya ayaga pin 192.168.15.1 waa bingareynaya ama pin 192.168.15.2 يقول لك لا ودي 11 ضربي 11.1 لكن كلنا يا 11 هدوء كده وانا شغال في بي سي وين شغال اوكي الروتر 4 11 او كده بي سي 1 كمان نوتي تنان 15 تنر كان يلا لكن كان كلنا نقول على صح time out
okay dhinaca subnetinka waxa ku jira marka ay tasawiranayo /25 halkan this is now /26 okay dia jadi kayak konon bagus dia puasa dia jadi puasa الذي يتواتن 110 English complete to computer GRE 5 no network 192.168.110 fuqaha welcome 110 maybe still 0 okay network 192.168.10.0 marka qaar troubleshootkan waa loo baahan yahay ciladahan maskaxda ku dhisanto bani aadmi yahay okay no waxaan rabaa PC gale usoo laabo waxaan rabaa anqinti balkaaway sidoo dhahay 11.1 hata caadi u shaqeynaa PC1 aan joognaa waa kan PC2 ima anqinti plus na ka ahay 10.1 oo dhinacaniti ah hadi u shaqeynaa markaa okay haddaasaan dhaadin dabto PC kan kala caadi open gareynaa hadda waxaan isticmaalnay GRE oo kan qaybtan hoose oo dhan qaybtan hoose waxay isku arkayaan waa GRE ma ahan oo tunnelka la soo dhaxmarsiiyay tunnelka soo dhaxmarin GRE isku arkaan qaybta qoran waa OSB okay waxaan ku laabanaa Wireshark tagana sidana qaybtan Wireshark GRE inuu noo sii tusaayo inkastoo Wireshark wax ka soo kursanayo GRE tunnelka hadda aan isticmaalnay asigoo waxaa jira marka hadda ilaa balkali waa soo sameyn doona kulley asoo waxaa jira IPsec oo la gelinayo encrypted dhowr password la gelinayo hal xabo ma loo maahan dhowr xabo la gelinayo jiro PC2 inuu hadda pin PC2 waxaan bin gareynaa 10.2 waxaan rabnaa 11 ila arko 11 iyo 10.2 raadinayna ma soo saar Wireshark waxaa la dhaxmarayo waa 15 11 waa kan arag 11 socdo 10 open gareynaa ku leeyahay iyo GRE la isticmaalay waliba installed okay wuxuu yiri okay waa hello packet iyo GRE laakiin waa pink waa kan 11.2 wuxuu open gareynayaa 10.2 labada BCS open gareynayaan inta la soo maray waa markaan internet source destination USB fiidiyo ku siinaa damajira taas waa garanay protocol ki USB waa kan 2 iyo 4 ka siti USB wuxuu ku taas keenaya kaliya 2.3.4
oo halkaaniti ah kan iyo kan ku siinaa bes kuwan kuma siinaayo ma arkayaan kuwaniti ma u jeedaan kuwan wuxuu kuu siinaa jidka lasoo maray halkaan iyo halkaan kale ah labadan percentana zero ah okay marka waa taas u faatay iyo taas waa garanay kasoo bax GRE tunnelka maxaa ku jira GRE tunnelkii lasoo maray waa kaas IP addresskooda waa kan 50 ana ku hadda ana sameynayay pink waa 11.10 hada GRE tunnelka aaday GRE tunnelka waa kaasi laakiin IP address waa qariyay kaas internet protocol message isku diraan waxa ay ka hadlaa kana waa ERB oo ku dhex jiro tunnel quite safe ERB oo ku dhex jiro tunnel halkaan ka sameynay habeen wanaagsan sana ku dhamaatay casharka kan GRE tunnel iyo oo la dhex geliyay ERB OSPF ka gooniya OSPF kan qofkii u baahan qaybta soo yaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.